ما دلين فرحان دولة دشي maad salaad wuxuu ka dhabeeyey dhaartiisii ahayd inuu layn doono dhammaanba saraakiishii la soo shaqaysay madaxweynihii hore jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo dilka farxaan qaroolena waa uu iska cad yahay oo waxaa kugu daliila ciddii uga sii horreysay ee kusii sugaysay goobta uu imaanaya taliyaha waxa uu ahaa taliyaha hay-adda sirdoonka qaranka nisa mahad salaad marka kiiskani ooma baahno caddayn iyo weliba baadhitaan dheeraada waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilaihi raajicuun runtii waa maalin aad u xanuun badan oo dhammaanteen qalbiyadeena taabanaysa qof walba Soomaaliya qalbigeeda taabanaysa qaranka Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed muu dhiman uu dhuuntay waxa ka haray magac dheer iyo maalintii qaraadhay inuu shisheeye u dabci waayay uu taliyihii guud ee gobolka Banaadir ee ciidanka booliiska u dhabarka saartay markuu ninkii Saadiq Joon banaanka ku tuuray codka hordhaca ee nala wadaagnay waa qayb ka mid ah ehelada iyo weliba asxaabtii uu lahaa taliye farxaan qaroole allah u naxariisto isla markaana allah naga siiyo samir iyo iimaane waxaa soo baxayso cadeymo dheeraada kuwaasi oo la xidhiidha in uu ku maqan yahay gacanta mahad salaad oo ah horjoogaha hay'adda sirdoonka qaranka nisa warkaani xalayto waxa idinku soo gudbinay in ay jiraan cadeymo dheeraada oo si hordhaca ama talantaaliya loo helayo kuwaasi oo shiki weyn gelinaya kiiska farxaan qaroole dhanka kaleeto xalay waxayna la wadaagnay inay jiraan qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada haramcad oo horjoogo u ahaa taliya farxaan qaroole inay gadoodeen isla markaana ay qabsadeen qaybo ka mid ah magaalada muqdisho dhanka kaleeto waxaa kala aragti duwanaan ay haatan ka taagan tahay gudaha villa Soomaaliya isla markaana waxaa shaki weyn uu ka taagan yahay halkaasi sida uu ku dhintay taliye farxaan qaroole taliyaha waxaan sheegnay inuu ka baxay magaalada muqdisho isla markaana uu tagay deegaanka Basra oo maalin ka hor ay qabsadeen ciidamada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya halkaasi waxa ka socday meena baaritaan lagu sameeyay eeridaasi maadaama urka al-shabaab ay halkaasi muddo deganayeen ayna miinooyin badan dhulka hoostiisa galiyeen dhanka kaleeto waxa ayadna halkaasi ka jirtay in ciidamada ammaanku ay ku soo qulqulayeen halkaasi maadaama ciidamada haramcad ay halkaasi ka saareen guud ahaan urkii al-shabaab ee ku sugnaa guud ahaan deegaankaasi dhanka kaleeto halkaasi waxaa ku sugnaa taliyaha hay'adda sirdoonka qaranka nisa oo uga sii horreeyay taliye farxaan qaroole halkaasi ayuuna ku soo dhaweynayay dhanka kale taliye farxaan qaroole allah u naxariistee waxa uu ku maqnaa wadanka Faransa iyo gaar ahaan hadanana waxa uu aaday wadan kaleeto oo loo yaqaan Belgiumka halkaasina waxa uu ku qaadanayay tababar dhinaca intelligence-ga dhanka kaleeto waxa ayadana soo baxayso inta laha taliye farxaan qaroole iyo waliba taliyaal kaleeto oo la soo shaqeeyay madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya in loo diyaarinayo assassination ama dil ama sidoo kale in xilka laga qaado qaar ka mid ah taliyaashii hore ee la soo shaqeeyay maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynihii hore jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wadanka ayay iskaga farxadeen kadib markii ay dareemeen culays iyo waliba dilal loogu hanjabayo qaar ka mid ah taliyaashaasi dhanka kaleeto waxaa haatan qorsheysan oo xisbiga dimuqraadiyiin iyo waliba taliyaha arxan darrada oo la dhaqmay taliyaashii hore mahad salaad oo haatan qorsheynaya in la dilo taliyaal kaleeto uu kamid yahay taliye odawa iyo waliba taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed taliye xijaar dhanka kaleeto waxa ayadna isa soo taraysa walaa xoogan oo laga qabo badqabka taliyaasha iyo waliba ciidamada Soomaaliyeed maadaama ay bilaabatay dilal qorsheysan oo loo geysanayo qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada ee kala duwan dhanka kaleeto waxa laga soo qorsheeyay weerarkan lagu dilay taliye farxaan qaroole meel aan saa uga fogeyn deegaanka Basra waxaana qorshahaasi oo dhan iyo abaabulkaasi lahaa sida la sheegay taliye mahad salaad oo ah horjoogaha hay'adda sirdoonka qaranka nisa si kastaba cadeymahan haatan sida hordhaca loo heliyo waxa ay meesha ka saarayaan in ururka al-shabaab ay dileen taliye farxaan qaroole allah u naxariistee dhanka kaleeto waxaa hadlay waalidka iyo gaar ahaan aabaha dhalay taliye farxaan qaroole waxaana uu sheegay inuusan ka xumayn geerida ku timid wiilkiisa laakiin sida loo dilay iyo sidoo kaleeto qaabka uu dhintay in uu aad uga xun yahay arrintaasina waxaa loo fasirtay in taliyaha uu dilay ama uu ku maqan yahay mid ka mid ah saraakiisha ugu sarreysa ciidamada gacantiisa
arrintan ayaana haatan imaanaysa xilli waddanka lagu ku jiro abaabul xoogan iyo kacdoon shacab oo ka dhana ururka argagixisada al-shabaab. waxaa dhanka kaleta socdo in qabiilaadka kala duwan ee dalka Soomaaliya ay haatan hal meel uga soo jeesadeen ururka sida arxandarrada ku daadinayo dhiigga ummadda Soomaaliyeed. dhanka kaleeto xalayto waxaa si weyn baraha bulshada la iskula wadaagayay waraysigii uu bixiyey Fahad Yaasiin kaasi oo ahaa in Mahad Salaad uu ka mid yahay horjoogayaasha ururka argagixisada al-shabaab isla markaana ku gabanayay xasaanada xildhibaannimo shantii sane ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaa ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho dilal qorshaysan iyo weliba qaraxyo isdaba jooga kuwaasi ayuuna uu fulinayay isla markaana uu fududeynayay. taliyihii hore hay'adda sirdoonka qaranka NISA ahna madaxweynaha la taliyaha madaxweynihii hore jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dhanka amniga Fahad Yaasiin ayaa hadlay waxaana uu sheegay in ay shaki la'aan tahay dilka ku imaatay Farxaan Qaroole in uu yahay ama uu ka dambeeyey Mahad Salaad. waxaana uu sheegay inay haatan jiraan qorshayaal si hordhaca ay u helayaan kuwaasi oo la xidhiidha in la dili doono saraakiil kaleeto oo ka tirsan hay'adda guud ahaan hay'adaha amniga ee dalka Soomaaliya. horey waxaan ogeyn in qaar ka mid ah madaxda iyo weliba waxgaradka magaalada Muqdisho in ay codsi u direen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. codsigani oo ay ka codsanayeen in la bedelo taliyaha hay'adda sirdoonka iyo weliba qaar ka mid ah hay'adaha amniga. guud ahaan arrintaasi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo horey looga digay inuu xilkan weyn u magacaabo Mahad Salaad ayaa dhagaha ka furaystay. waxayna haatan u muuqataa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay waddanka dib ugu soo laabtay inuu tallaabo adag qaadi doono. dhanka kaleeto ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ka tacsiyeeyay geerida ku timid taliye Farxaan Qaroole isla markaana uga tacsiyay ehelaatka iyo weliba dhammaanba ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay ayaa sheegay in arrintan looga harin halkaasi isla markaana baaritaan dheeraada lagu samayn doono. waxaana haatan ku howlan baaritaankaasi hay'ado madax bannaan oo ka tirsan hay'adaha kala duwan ee amniga ee dalka Soomaaliya. dhanka kaleeto waxaa iyadana soo baxayso in dhammaanba qabiilka uu ka dhashay Farxaan Qaroole ay haatan hubka qaateen isla markaana ay u diyaar garoobeen dagaal ay la geli doonaan Mahad Salaad iyo guud ahaanba cidda lagu tuhunsan yahay in uu ku maqan yahay gacanteeda. dhanka kaleeto waxaa hadlay madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kana tacsiyeeyay dhibaatada iyo weliba sida foosha xun ee loo dilay taliye Farxaan Qaroole. madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo soo saaray sawir uu xilligii uu dalacsiinay isla markaana uu darajada generaalnimo uu u xidhayay taliye Farxaan Qaroole ayaa sheegay in arrintani mar hore looga digay Farxaan Qaroole marar badanna uu yacni loo dhigay lidamdaamiyo iyo weliba dil qorshaysnaa oo ay soo abaabuleen kooxda Damal Jadiid. laakiin arrintan ayaa ahayd tii ugu dambeysay ee jashiisa ay ku bixi lahayd halkaasi. waxayna arrintaasi uu ka codsaday laamaha ammaanka inay si taxadar leh ay u baadhaan maadaama waddanku haatan uu ku jiro kacdoon shacab iyo weliba xaalad aad u adag oo keeni karta in qabiilaadka uu ka dhashay ama qabiilka uu ka dhashay taliye Farxaan Qaroole iyo weliba cidda haatan lagu tuhunsan yahay qabiilkeeda inay dhibaato halkaasi ay ka kala dhexdhacdo. si kastaba waxaa ayadana isa soo tarayso in horjoogihii ama afhayeenkii ururka argagixisada al-shabaab xalayto lagu dilay deegaanka Ceel Qooxle ee gobolka Galgaduud. halkaasina waxaa ka soo baxaya warar dheeraad oo la xiriira in gebi ahaanba afhayeenkii ururka argagixisada al-shabaab halkaasi lagu khaarijiyay. waxaan idiin soo gudbin doonaa cadaymo arrintaasi la iyo weliba muuqaalo argagax leh qaabkii loo dilay iyadoo weliba ciidamada ATMIS iyo ciidamada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay iska kaashadeen dilka lagu dilay taliyihii ama afhayeenkii ururka argagixisada al-shabaab. qaybaha dambe warkeenana waxaan idinku soo gudbin doonaa muuqaalo iyo weliba cadaymo la xidhiidha qaabkii loo dilay taliye Farxaan Qaroole. bal aan isla daawano muuqaalada dambe ee la xidhiidha ama lagu faahfaahinayo qaabkii loo soo abaabulay dilka Allah u naxariisee taliye Farxaan Qaroole iyo weliba muuqaalo kaleeto cadaynaya qaabka ayadana loo dilay afhayeenkii ururka argagixisada al-shabaab. waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. runtii waa maalin aad u xanuun badan oo dhammaanteen qalbiyadeena taabanaysa qof walba Soomaaliya qalbigeeda taabanaysa qaranka Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed. muu dhiman wuu dhuuntay waxa ka haray magac dheer iyo maalintii qaraarayd inuu shisheeye u dabci waayey uu taliyihii guud ee gobolka Banaadir ee ciidanka booliiska
ودبرك صارتين مركو نكي صادق جون بنان كاكو توري صادق جون ما انت يا آمين بالوكاس سياسة كما هدليين تاريخ دي يدا يسورنتا فرحان قرار الله ونحرست سوين بانو قلنا حي سيدا العلام كيمكا كاركي waxaan halkan ku hayaa horta waa kitaab quraan kariim farxaan shabaab ma dilin farxaan dowladda dishay xataa asaga kaligiis lama dilina istaafkiisiyaa la dilay farxaan istaafkii la socday baa la dilay waxaa taleefon ku soo wacaya maha salaad waxaa dilkiisa laga abaabulay degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe howlgalka saake lagu dilay generaal farxaan waxaa qayb ka ahaa maha salaad farxaan haddii qof dishay maha salaadaa dilay farxaan hadduu qof dilay maha salaadaa dilay farxaan horaa lagu hanjabay horaa digniino badan loo siiyey khataro badan hore ugu shaqaynayay laakiin taliyihii ciidanka haramcad ee farxaan ku xigay hubka dhigis lagu sameeyey markuu diiday basro basradaan maalina la galo maalina laga soo baxo micnaheedu waa fahmi waa aniga oo maha salad balcad u fadhiistay howlgalkeeda generaal farxaan dilkiisa balcda laga abaabulay maha salaadaan abaabulay farxaan wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah wuxuu ahaa aabe ku dhawaad 10 carruur ay u joogaan haddaan qaldanin carruurtiisa uganda muqdisho iyo meelo kala duwan marka waxaan leeyahay generaalka allah u naxariisto walaashay hooyadiis allah sabir iyo iimaan ka siiyo aabihiis allah sabir iyo iimaan ka siiyo generaal farxaan wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah wuxuu ahaa generaal isagoo 30 jir ah darajo ciidan oo intaas la eg gaaray oo kuwii ka waaweynaa ay joogeen waxaan leeyahay farxaan wuxuu ahaa nin ahlu salaad ah bishii agoosto iyo julaay midaan ma xasuusto waxaan wada joognay turkiga ankara hadda oo lagu jiro octobarna waxaan wada joognay yurub marka waxaan leeyahay farxaan allah u naxariisto sabir iyo iimaan allah ka siiyo eheladii qaraabadii asxaabtii uu ka tagay in xilka laga qaadayo fara lagu sheegay in laba xil uu isku hayay mid loo reebi doono nin xilkiisa gorgortan lagula jiro ahayba farxaan xilkiisiyaa gorgortan ku jiray wallaahi oo bilaahi oo tolla magac ilaah ku dharanaya haramcad aan kuu dayno booliiska gobolka banaadir aan kuu dayno farxaan nin qabiil ma ahayn waxaan xasuustaa hadda ka hor inay u yimaadeen odayaal beesha uu ka dhashay farxaan farax rooble reer xaaji saleebaan ay ku yidhahdeen madaxweyne xasan baan u tagaynaa waa kuu geynaynaa farxaan wuu diiday wuxuu yidhi aniga nin qabiil ma ihi nin shaqa ahay dowladda hadday ii baahantaan waa u shaqaynayaa hadday ii baahneenna u shaqayn maayo marka farxaan oo kale in damjadiid ay dhagar ku disho xitaa xabad way u quuri waayeen farxaan xabad meydkiisi minay ku qarxiyeen asaga iyo staff la socday miina lagu qarxiyay farxaan miino inta la dilay marka waxaan leenahay dowladnimo noocaas oo kale loo shaqayn maayo warbac muxudiin warbac taliyihii dhalinyarada ahaa ee nabad sugidda ee gobolka banaadir waxaa hoteelka lagu beegsanaya soo ahaa oo lagu mishiimaya hotel oo xitaa darajadiisii looga daba dhacay awoodiisii ciidan ee nabad sugidda marka waxaan leenahay halis middanka weynaa soo socota farxaan wuxuu ahaa saaxiibkay wuxuu ahaa walaalkay marna ma iloobi doono laakiin kuwa dilay maanta dhibay qaban kuwa farxaan maanta ku dilay basra war saddex habina laga soo wacay faransiiska kaale imaaw howlgalkii faraxaa diiday taliyihii haramcad ka hoosiyaa diiday howlgalka kaale adigu hogaami howlgalkan farxaan oo ku dhimanayo maha salaadii kuwa la socday aysan ku noqonin micnaha ka dambeey cidda fahmi karto waa fahmi kartiin farxaan waxaa lagu haystaa maxaa farmaajo ula shaqaysay maxaa dowladdii hore ula shaqaysay war farxaan damjadiid oo hore xasan sheekh uu la shaqayn jiray allah u naxariistee marka waxaan leenahay walaalkay farxaan allah u naxariisto maanta maalin iga xanuun badan iga murugo badan
ma jirto waa hadli lahay wallahi dhunta ay kala xiran marka waxaan leenahay walaalkay farxaan mar kale waxaan tacsi u dirayaa saaxiibaday kuwa ku qoyska ah kuwa ku qaraabada ah dadkii hal uma sheegi kara magacyadooda waxaan codsanaa in baaris lagu sameeyo dilka generaal farxaan kolley aniga aragtideeda wuxuu ila ahaa dil qorshaysan mission assassination la abaabulay marka waxaan leeyahay haddii ehel uu leeyahay ninka xildhibaan uu leeyahay senator uu leeyahay senatorkiisu waa Saciid Siyaad kolley hadda xildhibaan kale wax galo oo Cabdiraxmaan Odowa aan ahayn oo beeshaas ka tirsan oo ogahay ma jiro iyo senatorkaas Saciid Siyaad ayagaa looga fadhiyaa Odowa in kastoo nin muctarifa oo siyaasi ah oo wax badan uu yahay ma dhahayo Odowa ya maanta lagu kula dilkiisa malihi Odowa wax ka abaabulay laakiin Odowa wuxuu ahaa nin farxaan had iyo goor tala iyo tusaale la garab taagan wuxuu ahaa saaxiibkiis wuxuu ahaa adeerkiis wuxuu ahaa abtigiis nin dhinac kasta kala talin jiray waa Odowa Allah naxariistay farxaan marka Odowa waxaan ka codsanayaa anoo maanta siyaasadii meel iska dhigayo in baaris lagu sameeyo in dilka farxaan baaris lagu sameeyo farxaan maalin jimco u dhintay maanta waa jimco kulle kitaabkaas jaamac waxaan ku dhaaran karaa farxaan inuu ahaa nin ahlu salaad ah nin sadaqa badan hadda waa magaca ilaahay baan ku dhaaranayaa turkiga intaan wada joognay farxaan xataa gurigu kuma tukan jirin goobaha la isugu yimaado oo maqaayadaha iyo restaurantiyada waaweyn kuma tukan jirin masjidku aadan jiray waxaan joognay Ankara meel la yiraahdo Kasalay god hoosoo taraamida laga raac meesha masjidku yaala ku tukan jirnay وحد والله إلهي كبقى وحن ويدي فرحانو مركا حمر جوتي سوتو كتا انت سوتو كتا مقولي كنت كتا مسجد كنت كتا مرخاتي لا فرحان إن صدق أبدا أهل الصلاة وود انتي أمان إجماع